maantana waxaynu isugu nimi waxa weeye haddaba inaynu dhinaca siyaasiga ka eegno iyo policy positions xisbiyada hadday yihiin kuwa mucaaradka iyo yihiin xisbiga talada dalka hayaba halka la iska taagayo xornimo u fakarka iyo xornimo ku hadalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeeda haddaba markaan u guda galo arrimahan aynu isugu nimi saaka marka koobaad waxa halkan yaala dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland oo damaanad qaadaya xornimo u fakarka iyo xornimo hadalka dadka reer Soomaaliland damaanad qaadaya halkan uu yaala waxa isaguna barbar socda oo nool oo shaqaynaya xeerka saxaafadda Soomaaliland oo isaguna faahfaahsan oo inkastoo kabis iyo buuxin uu baahan yahay haddana damaanad qaadaya inay bulshada reer Soomaaliland xaq u leeyihiin saxaafad iyo journalists si hufan oo madax bannaan oo bilaa caburin ah ugu soo bandhiga wararka iyo xaqaa'iqa iyo fikirka dadka jamhuuriyadda Soomaaliland labadaaba markaan halkan iska dhigno waxaad isweydiinaysaa dib ugu noqonaysaa markaad xornimo ku hadal iyo xornimo fikir iyo arrimaha markaad maqasho waxaad markaba ku noqonaysaa taariikhda dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku soo caaniyo biyomaaleen iyo wixii aynu dawladdii Maxamed Siyaad Barre ee aynu waqtiyada kamid ahayn kula dagaalanay aynu uga hornimi muxuu ahaa baynu isweydiinaynaa iyadoo dastuurkii iyo xeerarkii iyo madax bannaanidii iyo wixii halkii noo yaalaan aynu u soo noqon doono haddana dadku deewaynay ideology iyo mabaadi' leeyihiin horta mabaadi'dii aynu u dagaalanay iyo kuwii aynu dawladaha hore uga hornimi iyo kuwii qaarkeen u dhinteen oo qaarkeen u agoomoobeen afkaartii nooca ahayd maxay ahayd baad markaba horta isweydiinaysaa markaa jawaabta saxda aad heshaa waxa kaaga soo baxaya ma maraynaa wadadii saxda ahayd mise mari mayno waxaynu u dagaalanay waxay ahayd kow xorriyaddaas oo ah xorriyadda fikirka xorriyadda siyaasadda xorriyadda hadalka xorriyadda dhaqanka xorriyadda maalgashiga ganacsiga anything markay sidaa tahay haddaanu nahay annagu xisbiga wadani iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool waxaynu isku waafaqsannahay inan sidii ay ahayd inaynu xornimo hadal iyo xornimo fikir u yeelanno inaan lahayn oo maalinba waliba maalinta ka dambaysa ay taasi soo yaraanayso oo ay soo wiiqmayso oo wax fara badan ay maalinta ka dambeeya iska sii dhimayaan marka positionka aynu istaagaynaa waxa weeye inaynu taariikhda ku noqonno wixii aynu u nimi iyo wixii aynu u dagaalanay ku noqonno dastuurka ku noqonno afkaarta iyo mabaadi'da siyaasiga ah iyo siyaasadda halkaynu iska taagayno waxaasoo dhan markaynu isu soo geyno ayaynu markaa position qaadan karaynaa oo aynu qaran ahaan la iman karaynaa sidaynu ku heli lahayn iyo waddadaynu ku heli lahayn warbaahin madax bannaan intaanan gelin positionka xisbiga waxaynu u baahannahay xoogaa inaynu situation analysis samayno oo bal horta halkay wax marayaan deen idhaahno intaynaan go'aan siyaasi ah aynaan sheegin waxay wax marayaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah taa u dagaalantay xornimada hadalku waxay maanta maraysaa waxa weeye in fikirka xorta ah iyo hadalka xorta ah labaduba ay yihiin dambi ka mida dambiyada ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland waxa taa ku tusaya 7 sannadood 8 sannadood ee ugu dambeeyay inkastoo ay soo badanaysay haddana bilowgiiba waxa la xidhxidhay saxaafaddii ugu faraha badnayd intii jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay waxa la xidhxidhay intii xukuumaddan xisbiga kulmiye ay talada haysay sanad walbana sanadka ka dambeeya may soo yaraanayn xariga suxufiyiintu balse way soo badanayeen oo mararka qaar waxaad arkaysaa in sanadkii la xidhayo in ku dhow 100 suxufi ama in ka badan boqolaal dhibaato oo ka dhan ah saxaafaddu ay dhacaysay si kale markaad u dhigto innaga oo sheeganayna waddan dimuqraadi ah oo democratic state ah waxaynu ka xadhig iyo mushkilad badan nahay marka loo yimaado dhinaca saxaafadda wadamada dictatorka ah ee ka mid tahay North Korea ee ka mid tahay waddanka Eritrea ayaynu ka dhibaato badan nahay dhanka xadhiga saxaafadda arrintu markay sidaa tahay waxay dhibaato toos ah ku tahay ilbaxnimadii
oo dadku haddii aanay hadli karayn haddii aanay war sheegi karayn haddii aanay fikri karayn haddii aanay warbaahinta qura ma ahayd qofka haddii aanu gabyi karayn iska daa wax kale oo lagu xidhayo de markaa ma imanayso Somaliland aynu doonaynay ma iman karayso oo waxa imanaysa markaa Somaliland tii aynu ka dagaalanay waqtigii Maxamed Siyaad Barre aynu la dagaalameynay oo magacii uu iska bedeshay oo Democratic Somali Republic inta iska bedeshay la baxday Somaliland magacuna maaha ka waxa keenay waxa weeye afkaarta iyo mabaadi'da siyaasiga kan dhaliya wanaaga ka dhaliya waa ka inta waxaan ku xajinayaa xisbiga wadani wuxuu leeyahay barnaamij siyaasi oo qoran oo lagula xisaabtami karo oo iminka aan anigu gacanta ku hayo oo aan mabaadi'diisa uu ka taagan yahay arrimaha saxaafadana idin akhri karo sidoo kale xisbiga wadani wuxuu isbarbar taagay oo ay markhaati buuxa ka yihiin bulshada reer Soomaaliland badankeeda bulshada rayidka ee ay civil society ay ka mid tahay Human Rights Center oo ay ka mid tahay Soldier in uu ka hor yimi dhibaatooyinka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu ay ku hayaan xornimo hadalka iyo fikirka xornimada ay ku hayaan sanadkii tagay 2016 anigoo ahaa xogayaha waaxda u qaabilsan saxaafadda xisbiga wadani waxaanu diiwaan gelinay in ka badan 120 goor oo xisbiga wadani uu ka hadlay dhibaato وحسبك كله كل مية ده ثلاثة ضلك هيا كسمية مدح بناني ده جمهورية حرني ماذا هذا لك دتك خير سومالان وحيسقط شرتي مثل حرحراي صحافة مثل حرحراي هايدا ورباهينات مثل حرحراي بلشو عن صحفيين بأهين لكن هذا iyadoo dhammaantoodna habal la xidhay loo maray wado aan ahayn uu sheegayo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland oo in hab ciqaab xeer ciqaabeed loo maray penal code iyadoo la adeegsanayo in lagu ciqaabay iyadoo ay markii hore ahayd in qaab madani loo maro taa iyadoo uu ka duulayo xukuumaddu markii ugu horeysay timid xukuumadda kulmiye waxay markiiba soo propose garaysay inay xeerkii saxaafadda jamhuuriyadda Somaliland damaanad qaadayay xornimada iyo karaamada iyo sharafta suxufiga madaniga ahaa in ay bedesho oo mid kale keento sida la wada ogsoon yahay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan iyo badanka baarlamaanka xubnihiisa ayaa is hortaagay ilaa iyo maantana xeerkaas xeer ciqaabeedkaasi wuxuu yaalaa golaha wakiilada xukuumaduna lama noqon baarlamaankuna wuu is hortaagay wuxuuna u diiday waxa weeye isaga oo ka fikiraya badbaadinta xorriyadda qowlka dadka jamhuuriyadda Somaliland